xukunkii nusqarniga ka badan jiray ee asadyadii Suuriya ayaa si lama ilaawaan ah ugu dambeyn ku soo afmeermay kaasoo uu dhimashadiisa lib ku helay Axmed Xuseen al-Sharac hogaamiyihii hore ee garab al-qaacideedkii Suuriya ee al-Nusra la oran jiray kuwa oo magacyo badan iyo mustawayaal badan oo kala dambeeyay qaatay ka hor inta aysan isu bedelin xogaga mucaaradka ah ee hadda Bishaar al-Assad talada ka farmaroojiyay oo la yiraahdo Xayaat Tahriir al-Sham. Axmed Xuseen al-Sharac oo waagii hore qarin jiray magaciisa saxda ah waxa uu 1982 ku dhashay Riyadh, Saudi Arabia, halka oo aabihiis ka ahaa injineer shidaal. 1989 ayaa qoyskiisu Syria dib ugu laabteen ka hor inta aan isagu u guurin Ciraaq oo uu kaga biiray al-qaacidadii iska caabinta Mareykanka 2003 oo ahayd isla sanadkii Mareykanku galay Ciraaq. ciidamada Mareykanka ayaa ku xiray al-Julaani Ciraaq 2006 shan sano oo uu xirnaa kadib waxa uu ninkani asaasay garab al-qaacideedkii Syria oo la oran jiray al-Nusra Front, kuwa oo isu bedelay mucaarad ka soo horjeeda xukuumaddii Assad iyagoo ka talinayay meelo ay ka mid tahay Idlib oo fariisin u ahayd. 2016 waxa uu shaaciyay in magacii al-Nusra Front ay ku bedesheen Fatah al-Sham ayna doonayaan inay xukunka Syria ka qaadaan rajiimka reer Assad, taa oo ugu dambeyn maanta rumowday. magaca xogagan oo haatan la yiraahdo Xayaat Tahriir al-Sham qaramada midoobay Turkiga, Mareykanka iyo midowga Yurub argagixiso ayay ugu tilmaaman yihiin, balse Axmed al-Sharac ayaa taas ugu yeeray cadaalad darro lagu magac dilayo halgankooda 14 sano jirka ah ee haatan guuleystay, kaasoo sida uu sheegay Suuriya u horseedi doona waayo dawlad wanaag, cadaalad iyo horumar ah. shacbiga Suuriya ayaa soo dhaweeyay talo la wareegida Tahriir al-Sham waxayna u dabaaldegeen inuu soo afmeermay nidaamkii dalkan arsaagiis ka reebay ee asadyadu iska dhaxleen.